Assalaamu calaykum waraxmatullah isku soo noqod wanaagsan tutorialkan waxaynu ku dhisi doonaa sida halkan shaashada ka muuqata pricing plan sida ay markaasi sameeyaan shirkadaha tusaale ahaan gada ama iibiya markaasi software kala duwan ama serviceyada kala duwan oo tusaale ahaan waxay leeyihiin saddex service tan aynu dhisi doono ka koobaad wuxuu noqon doonaa sida bartan ka muuqata mid free ah oo bartan waxay noo yaala markaasi xaddiga inta aad download garaysan kartid yacni tusaale weeyaan waxaan tusaale usoo qaatay meel aad ka download garaysan kartid footage-ka ama sawirada ama videoskii waxyaabaha lamidka oo bartan oo kale waxaad halkan ku haysataa storage-kii iyo price-kii oo ah markaasi mid free ah halka labadan kale ay ka yihiin qaar markaasi paid versions ah oo waxaa ka duwan markaasi download-ka aad heli kartid iyo storage-ka aad helaysid iyo support-ka aad helaysid markaasi kana uu kasii duwan yahay oo uu kasii sareeya markaasi kan pro plan-ka oo kani wax weeyaan silver plan okay waqti badan ku lumin maayo markaasi qaabka uu eeg yahay tutorialkan project aynu ku dhisayno marka horaan uga sii socon doonaa halkan waxaynu ku haysanaa hover effect oo waxay siyara bedelaysaa markaasi colorka waxaad ku baranaysaa markaasi html iyo css oo waxaa kor u kacaysa markaasi aqoonta aad u leedahay html iyo css markaad dhistid waxyaabo kala duwan sitekan waxaynu sidoo kale ku baran doonaa yani sida responsive looga dhigo website-yada oo sidaynu arkayno waxaa contentigani ay isbedelaysaa marka screen size-keenu uu yaraado oo tusaale ahaan marka laga isticmaalayo mobilada iyo wixii lamidka okay maalmihii ugu dambeysay oo dhan waxaan soo gelinayay projectyo dhaadheer laakiin tutorialkan waxaan go'aansaday in projectgan oo ka mid ahaa projectyada aan ku bixinayay markaasi course-ka xirfad academy ku jira ee html iyo css inaan markaasi soo geliyo youtube-ka inta aynu kaga tagno sida uu eeg yahay waxaynu dhisayno inta aanan toos u gudagelin waxa aan kaa codsan lahaa waqti fara badan ayaan ku bixiya markaasi tutorialskan haddii aad ka faa'iidaysatid waxaan kaa codsan lahaa inaad like siisid si markaasi youtube-ka ay ugu caawiso qeybtiisa algorithmka inuu usoo bandhigo dadka xiiseynaya markaasi tutorialada noocan oo kalea okay toos baan hadda u gudageli doonaa waxaan samayn doonaa ugu horeyn waxaan tegi doonaa desktop-kayga haddii aan terminalka soo furto waxaan odhan doonaa markaasi cd desktop kadibna waxaan samaysan doonaa directory cusub directorygan waxaan u bixin doonaa pricing plan yani waa folder cusub kadibna waxaan odhan doonaa on cd yani cd-dan waxay u taagantahay change directory intan waxay u taagantahay make directory yani folder samee baan leeyahay imika kadibna folderka dhexgal pricing plan okay hadda wuxuu inoo sameeyey folderkaas cusub kadibna waxaynu ku dhex jirnaa hadda folderkii cusba okay intaa kadib waxaan odhan doonaa markaasi ii samee faylasha aan u baahanahay waa laba fayl oo keliyata mid markaasi html iyo mid css mid waxaan u bixin doonaa index halka aan ka kalena u bixin doono style.css inter baan odhan doonaa haddii aynu eegno imika folderkan waxaa ku jira markaasi labadan folder ee aynu hadda samaynay kadib waxaan odhan doonaa code dot si uu iigu furo markaasi visual studio code dabcan adigu waad isticmaali kartaa code editorka aad jeceshahay laakiin badanka waxaan isticmaalaa anu visual studio code okay waxa aan tegi doonaa markaasi fileka html-ka kadibna waxaan taaban doonaa exclamation mark si uu igu sameeyo boilerplate html ah markaas halkan ciwaanka waxaan ka dhigi doonaa maybe pricing plan titleka okay haddaynu bartan eegno shayga ugu horeyn u baahanay wax weeyaan inaynu sameyno markaasi containerkan ama div-kan haynaya saddexdan shay okay bartan aan iman doonaa markaasi boriga gudihiisa haddii aynu naga xidhno qeybtan dhinacaas si ay markaasi shaashadu inoogu weynaato boriga dhexdiisaan tegi doonaa waxaan odhan doonaa ii samee div class namekiisu yahay container marka bartan waxaynu dhex dhigi doonaa saddexdan shay maadaama saddexduba isku eeg yihiin waxaan u bixin doonaa markaasi class name isku mid ah marka waxaan odhan doonaa ii samee div class namekiisa la dhahdo plan
kadibna enter baan odhan doonaa hadhow tolo waxaynu samaynaynaa 3 midh markaas sidan oo kale ay noqonaysaa 3 saas oo kale ah marka intii aanu 3 gooni u qori lahayn labada dambe waxaynu odhan doonaa copy paste laakiin kan koobaaduna aynu dhamaystirno haddaynu eegno markaasi waxa ugu horeeyaan bartaa ku haysanaa wax weeyaan yani button weeyaan marka gacantu ay dul tagto ay marka mouse-ku dul tago hover effect-ga soo baxaysa soo markaysaan marka waxaan samaynaynaa button waxaan odhan doonaa markaasi button wax class name hadda uma samayn doono kadibna waxaa bartan inoogu qoran yearly subscription halkani p weeyaan maaha b okay waxa kusii xigaan wax weeyaan ciwaanka aynu bartan ku haysano marka waxaan ka dhigi doonaa kan laftirkiisa button waad ka dhigi kartaa laakiin waxaan ka dhigi doonaa h1 waxaan jeedaa h3 class namekiisana waxaan u bixin doonaa border okay bartan waxaan ku qori doonaa markaasi free waxa kusii xiga aynu u baahnayna waxa weeyaan text sida meesha ku qoran free forever ay ku qorantay marka waxaan odhan doonaa small tag ii samee deetana bartan aynu ku qori doonaa free forever waxa kale kusii xiga waxay noqonaysaa markaasi ashiyaadan meesha taala sida downloads storage labadaas shay marka haddaynu nidhaahno labadaas shay waxaad inoo dhex gelisaa div class namekiisa la idhaahdo plan info maadaamuu information ka bixinaya planka kadibna waxaan odhan doonaa div dhexgeli intan paragraphan samayn doonaa waxa ugu horeeya bartan ku qoran wax weeyaan markaasi downloads bartan aan ku qori doonaa markaasi downloads haddaynu eegno bartan waxaynu arkanaa inay kala color yihiin ciwaanka iyo markaasi nambarada meeshan ku qoran marka waxaan odhan doonaa nambarada waxaad ku dhex xidhaa small tag bartan aan markaa ku qori doonaa 2GB haddii aynu paragraphkan un koobiyeyno mar kale oo aynu idhaahno bartan maxay noogu qoran meeshan storagekiisuna markaasi waa imisa kan koobaad waa 5GB markaas okay inta aanan samayn markaasi taa iyo taa kale ku xigta aynu intan ku furno markaasi live server waxaan odhan doonaa markaasi right click kadibna open with live server hadduuna kuugu jirin waxaad kasoo degsan kartaa bartan extensionska halkan ubaad ku qori kartaa markaasi live server kadibna waxaad soo degsan kartaa kaas okay marka anigu igu jiraa waxba ma soo degsanayo kadibna waxaan odhan doonaa ku fur bartan waxay noogu furmay markaasi filekeeni html-ka keena dhamayska tiran sidan u eegayay dabcan css taynu ku hagaajinaa laakiin hadda waxaynu doonanay inaynu sii aragno siduu u eegyahay okay shayga ku xiga aynu u baahanay inaynu samayno waxa weeyaan iminka waxaynu maranaa bartaas storage-ka waxaan samayn doonaa markaasi price-ka bartan aan iman doonaa haddaynu diifkan ka baxno haynaya markaasi intan sidoo kale aynu kana kasii baxnaa haynaya markaasi plan infoga oo aynu halkan nimaadno waxaan odhan doonaa ii samee h2 class namekiisu yahay price kadibna bartan waxaan ku qori doonaa price waxaan odhan doonaa ka koobaad wuxuu ahaa 0 per month waxa kale inoogu sii xigayaan waxa weeyaan markaasi buttonkaas marka bartan aan iman doonaa ii samee markaasi button class namekiisu yahay start button free halkana waxaan ku qori doonaa get started kadaan save idhaahdo aynu eegno waxa inoo samaysmay markaasi keeni koobaad okay intaynaan html keena ka tegin aynu qaadno plankan dhan bartaasu ku xidhmayaa diifkan kadibna aynu nidhaano inoo copy garee 3 midh inoo samee 1 2 yani si 3 midh inoogu noqdaan okay haddii aan halkan eego waxa inoo samaysmay markaasi 3 xabo wax yar baan yara badbedeli doonaa ka koobaad saasuu isagoo ku dhamaystiran yahay marka laga reebo buttonkan ayaan ku dari doonaa markaasi class name la idhaahdo free btn iyo bartan aynu ku darnay borderka oon odhan doono markaasi waxaad ku dartaa border free maadaamuu plankan yahay ka freega okay keena labaad ayaynu odhan doonaa plantan ku daa waynu doonaa inaynu class nameka u haysto laakiin waxaynu ku daraynaa additional class oo la idhaahdo markaasi popular
sababtan saa u samaynaa wax weeyaan waxaan doonaynaa styleta dabaqda markaasi plankan koobaad inuu dabaqo kan iyo kal saddexaadna sidoo kale buttonkan waxaynu odhan doonaa class namekiisa waxaad ka dhigtaa pro plan btn. okay keena labaadna intaas ayuu ku dhammaystiran yahay. ka saddexaad baan u tegi doonaa intaa kuma dhammaystirna sorry aynu bedbedelna markaasi downloadskan haddaan eego bartan waxaynu haysanaa halkan 5g pricekiisuna wax weeyaan $12 per month. marka bartii aynu ku qornay free forever aynu ka dhigaynaa halkan 12 per month. sidoo kalena halkan waxaynu ku qori doonaa maxayna ugu qoran bartan pro plan. okay gb giisuna waxa weeyaan 5g iyo 10g. okay 5gb iyo 10gb. waxaa kaluu leeyahay markaasi support. marka bartan aynu ku dari doonaa supportka oo ah markaasi basic support. okay bartan pricekan waxaynu odhan doonaa $12 per month. waxaynu u tegaynaa markaa keena ugu dambeeya saddexaad buttonka waxaan odhan doonaa waxaad ku dartaa class name la idhaahdo silver bro. halkan freega aynu ku qornayna waxaynu ka dhigi doonaa silver pro plan. iyo halkan free forever ay ku qorantayna waxaynu ka dhigi doonaa pricekiisa oo ah $19 per month. 19 per month. okay bartan border ay ku qorantay iyadana waxaynu ku dari doonaa border silver si ay wixii u kala soocmaan. kan labaad isagana aynu ku darno border pro. okay gb giisoo keliyaata markay noo hadhay iyo bartan aynu ka dhigi doono $19 per month. gb-gu waxa weeyaan downloadsku waxa weeyaan markaasi unlimited. bartan aan ku qoro markaasi unlimited iyo bartan ood heli doonto 50gb iyo paragraph saddexaad oo ah support oo noqon doona markaasi 24/7. yacni maalin kasta waqtigii aad doontid baa caawinaada waad helaysaa. marka saa imika waxay noogu dhammaystiran saan rajaynayo qeybteena html-ka. aynu tagno css-ta. okay maadaameynu kan aan doonayn intaas inaan ka eegto aynu iska xidhno keena dhamayska tiran waxaan iman doonaa bartan headhka gudihiisa kadibna waxaan ku xidhiidhin doonaa css-tayda. css-ta aan sameeyey waxaa la odhanaya ama fileka style.css. kadibna waxaynu tegi doonaa css-ta hadaynu soo yaraysano ugu horeyn waxaan odhan doonaa dhammaan markaasi tagskii waxaa ku guda jira filekayga html waxaan ka saari doonaa marginka ku jira iyo markaasi paddingka ku jira. waxaan odhan doonaa 0 ka dhig. yacni xidigtan waxay leedahay soo wada dooro dhammaan meesha waxa kugu guda jira kadibna waxaan ka saaray markaasi marginkii iyo paddingkii default ay u haysteen. iminka markaan save video waxaan arkanaa inay contentigii oo dhan bidixda ku dhegtay sidoo kale dusha sarena ay ku dhegtay. html-kayga ayaan markaasi odhan doonaa waxaad ku dartaa box sizingkiisa waxaad ka dhigtaa border box. okay very good. waxaynu ku horeyn doonaa markaasi containerkeena aynu haysano haynaya saddexdan shay. haddii aan ugu horeyn backgroundkiisa u sameeyo ka dhigo rgb 245 save idhaahdo waxaan arkanaa in backgroundkiisa uu noqday markaasi mid grey ah. widthkiisa waxaan odhan doonaa width u samee kadibna waxaad ka dhigtaa 100% yacni shaashadoo dhan. laakiin maadaameynu responsive ka dhigayno waxaan ku dari doonaa max width ah markaasi 960 pixels yacni inta ayaanu ka badan baan leenay. waxaa kaloon ku dari doonaa markaasi padding si contentiga ku dhex jirta ay uga soo yaro durugto hareeraha. wata hadda kasoo durugtay 15 pixels. margin baan sidoo kale ku dari doonaa si uu isaga laftirkiisu hareeraha uga soo durko. okay haddaynu iminka eegno waxaan arkanaa meeshu yaallo yacni waxaan ku daray max width ah markaasi 960 pixels si aan kuu tuso arrintaas waxay sameynayso
يعني 100% markuu yahay waa sida laakiin waxaan leenahay max widthkiisu original ahaan ha noqdo 960 pixels. Okay, haddaan soo yareeyo si aynu arki karayno labadaba kan maybe kan aynoo soo yaree. Okay, waxaan ku dari doonaa markaasi border 2 pixels ah waxaan ujeedaa 1 pixels ah oo solid ah. Colorkan waxaynu ka dhigi doonaa 201. Okay, sababtu soo bixi waay maxay tahay? Oh sorry, halkan aynu ka tagnay RGB. Waxa markaasi soo baxay borderka yar. Laakiin waxaan doonaynaa borderkan laftirkiisa inuu noqdo mid soo yara laaban, yani hareeraha aynu ka soo laabno diifkeenan. Marka waxaan odhan doonaa border radius ku dar markaasi 7 pixels. Then save idhaahdo waxaa inoogu darsamay markaasi border radiuskaas. Waxaa kaloon ku dari doonaa box shadow. Box shadowgu haddii aad doonaysid saa markaasi box shadow diyaarsan inaad heshid bartan aad tegi kartaa. waxaa odhan kartaa box shadow generator. kadibna waxaad ku dhufan kartaa bartan. Oh sorry, kan maaha, kanaad ku dhufan doontaa. kadibna waxaad samaysan kartaa box shadowga aad u baahantay. tusaalahaan haddaad shift right raadid wuxuu kasoo baxayaa dhinaca bidixda. yani waad fahantay, waxaad badin kartaa spreadka intuu qabsanayo box shadowgaagu iyo waxyaabahaas oo dhan. Okay, anu box shadowga aan samayn kadibna marka aad dhamaysid ayaad sorry waan ka baxay si aan si fiican kuugu tuso. hadhow markaad dhamaysid dooratid wixii aad u baahantay unbaad markaa bartan soo copy garaysanaysaa. waa ka bartaa hoose kuu yaala. kadibna box shadowgaaga ayaad ku darsanaysaa CSS taada. kan waxaan odhan doonaa waxaad ka dhigtaa waxaan isticmaalaa badanka Tailwind box shadowgeeda. marka waxaan isticmaali doonaa markaasi medium ah. kanaan markaasi soo copy garaysan doonaa. hadaan naga xidho halkanaan iman doonaa kadibna bartanaan dhigi doonaa. Okay, haddaan save idhaahdo waxaan arkaynaa inuu inoo yeeshay markaasi box shadow yar oo macaan. haddaynu intaa kaga nimaadno box shadowga waxaan u tegi doonaa hadda contentigan laftirkeeda inuu odhan doonaa kala habee. marka waxaanu isticmaali doonaa shay la idhaahdo flex. marka waxaan odhan doonaa display flex. marka koobaadeen saa idhaahdo contentigi way ag imanaysaa display flex markaan idhi. laakiin maadaameynu sitekeenan responsive ka dhigayno ma doonayna inay row noqoto. waxaan odhanaa flex directionku ha noqdo column, yani mid jiifa. saasa isku ag yaalo ugu horeynta. markaan samaynaya markaasi siteka responsiveka waxaan ka bilaabaa marka screen sizeku yar yahay. marka tan iminka aynu samaynayna waxay dabaqaysaa screen sizeku markuu yar yahay. hadhow toolaan u tegi doonaa si aynu nooca uga dhigi karno hadhow shaashadu markay weynaato. laakiin aynu hadda intaa ku dayno. waxaan u imanayaa markaasi defaultkan aan u bixiyey plan. bartan aan iman doonaa. waxaan odhan doonaa dot plan. iisoo door class nameka la idhahdo plan. waxaan ku dari doonaa markaasi padding 10 pixels ah. margin 15 pixels ah. then save idhaahdo. waa kuwa hadda kala durkay markaynu ku darnay marginka iyo paddingka. background baan ku dari doonaa color ah white si background colorkoodu u noqdo mid white ah. text sida aynu geyno markaasi centerka, yani text sidan ku dhex qoran mid walba. hadda markaan text align center idhi waxaynu arkanaa inay meeshaas timid. waxaan ku dari doonaa min width cabirka ugu yar uu yeelan karo diifkaasi. waxaan odhan doonaa 260 pixels. waxaa kaloo aynu ku dari doonaa box shadow. haddii aynu box shadowgan aynu bartan ku haysanay aynu soo copy garaysano oo aynu markaasi bartan dhigno wuxuu yeelanayaa markaasi box shadow qurux badan. Okay, haddaynu plankana intaa kaga tagno waxaan odhan doonaa batanada aynu haysano dhan u tag iyagana. waxaan u samayn doonaa height markaasi 40 pixels ah. sidoo kale waxaan u samayn doonaa width 90% ah si uu u qabsado meeshaas oo dhan oo kuwa batanadeeni meesha kasoo baxay. waxaynu odhan doonaa borderka aynu ka saarno batanadan aynu haysano. waxaa kaloon odhan doonaa waxaad ku dartaa margin 9 pixels top iyo right iyo down iyo bottom. waxaynu odhan doonaa auto ka dhig.
okay, very good meel fiican bay noo maraysaa. haddaynu iminka eegno wuu soo qurux badnaanayaa, laakiin waxay noo hadhay inaynu sidoo kale hagaajino kuwan. iminka kan oo kale saasoo kale uma weynaanayo, kuwan ugu sarsareeyaa. sidoo kale kalaradii kala duwanaa inaynu ku darno. okay, bartan waxaynu ku haysanay markaasi haddii aynu halkan eegno butano, mid aynu u bixinay free button, mid aynu u bixinay pro plan button, yani waa kuwa ugu sareeya markaasi. kuwa waxaynu doonaynaa inay ka yara duwanaadaan batanada kale. marka haddaan dhammaantooda hal mar isla wada dooro, waxaan odhan doonaa free buttonka soo door, kadibna hakad dhe. waxay ka dhigan tahay hakadkaasi inaad dooranaysid shay kale oo waxaad ku qoraysid bartani ay dabaqayaan labadaa shayba. kan waxaan odhan doonaa pro plan button, iyo ka ugu dambeeyo ah silver plan button. colorkoodaan markaasi odhan doonaa ka dhig gray, yani fartusay u qoran tahay. keeni ugu sareeya waa kaa isbedelay, kanna waa kaa isbedelay. sabab uu isku bedeli waayey kan silver planty. aynu eegno saynu u qornay. okay, bartan aynu ka ilownay btn silver plan button. okay, wakaasi markaasi isbedelay textidiisii. waxaa kaloo aynu odhan doonaa widthkiisu ha yaraado, ha noqdo 80 pixels, mid yaroo markaasi soo kooban. waxaa kaloo aynu ku dari doonaa border radius ah markaasi 6 pixels. okay, wakaa markaasi gray yar noqday, sidoo kale yeeshay muxuu ahaa yani widthkiisi uu soo koobmay. okay, intaanan ka tegin kuwan, hadda waxaan odhan doonaa xabad u style garee markaas. haddaan ka koobaad soo qabto, bartan inoo dhig. kanaan odhan doonaa markaasi background colorkiisa waxaad ka dhigtaa 253228 yani colorka ere markaasi waxoogaa binkiga. waxaynu soo qaban doonaa sidoo kale pro plan buttonka, isagana waxaan odhan doonaa background colorkiisa waxaad ka dhigtaa maybe colorkan alice bluega, si uu u noqdo markaasi blue gayer. iyo keena ugu dambeeya oo ah markaasi silver plan button, isagana waxaynu ka dhigi doonaa background colorkiisa RGB 24823199. haddaan safe idhaahdo, isagana wuxuu noqon doonaa colorka yar ee yellowga. okay, haddaynu intaa wax yar halkaa ku yara dayno, waxaan hagaajin doonaa font familyga uu leeyahay bodigu. marka waxaan odhan doonaa bodiga font familygiisa waxaad ka dhigtaa sans serif. waqti kuma lumina inaan font soo download gareeyo ama soo import gareeyo waxyaabahaas, maadaama uu project yaroo kooban yahay. waxaynu ka dhigi doonaa markaasi font familyga mid sans serifa. intaanan ku darin bodiga display flex, sababtaan ugu daray ayaan idin tusayaa. haddaynu bartan tagno oo aynu sitekeenan weynaysiino, waxaan arkanaa inuu taagan yahay markaasi dhexda. waxaan doonayaa inaan dhex dhigo centerka bodigeena, yani shaashadeenan centerkeeda inaan dhigo. marka waxaan odhan doonaa bodiga waxaad ku dartaa display flex, maadaama containerka uu ku dhex jiraa uu bodiga yaalay. kadibna waxaynu odhan doonaa justify content center, yani si horizontal ah ayay dhexda u dhigaysaa justify content center taasi. sidoo kale waxaynu u baahannahay inaynu nidhaahno align item center. tanna waxay si verticala u dhigaysaa dhinaca dhexda. hadda ma arki karayna taas, laakiin waxaan ku dari doonaa min height, noqon doona markaasi 100 view height. si aad u aragtid align item centerkaasi inay verticalka dhexda dhigayso, waxaan tegi doonaa maadaamay kuwani qaadanayaan positionka oo dhan, halkan flex direction columnta ahayd ayaan odhan doonaa commenty. wakaas hadda noqday mid scarab yaala. haddii iminka aan ka masaxo markaasi labadan dambe, waxaan arkanaa inay uu yaalayo dusha sare. marka si aynu u dhex dhigno meeshan oo aynu centerka u dhigno, ayaynu ku darnay markaasi align item center iyo markaasi min heightkaas. haddaan safe idhaahdo oo aynu bartaa soo dhigno, kanna waxaan ku celin doonaa markaasi sidiisaaba hadda ku daa, saas aynoo ahaado. si aynu dhaqso ugu dhamaystirno, hadhow toole aynu ku dari doonaa markaa kaas.
okay waxaynu hagaajinaynaa hadda batanada bartan inoo yaala kuweenan get started ay ku qorantay marka waxaynu usoo bixinay start button free ka koobaad haddaynu ku horeyno background colorkiisa ayaan odhan doonaa waxaad ka dhigtaa light coral colorkiisana waxaan odhan doonaa waxaad ka dhigtaa white okay saddexdiiba hadda way is wada bedeleen hal mar sababtu maxay tahay okay start free button kuwanaynu markaasi isku wada magac ka dhignay aynu bedelna markaasi kuwan kan koobaad baynu ku dayn doonaa sidaas kan waxaynu ka dhigi doonaa pro iyo ka ugu dambeeyo ah markaasi silver okay save haddaan idhaahdo bartanaan iman doonaa intanun haddii aan copy gareeyo markaas oo aan paste idhaahdo 3 jeer kan wuxuu inoo noqon doonaa proga kan wuxuu inoo noqon doonaa markaasi silverta okay marka background colorka kan waxaynu ka dhigaynaa kan proga steel blue ka ugu dambeeyna waxaynu ka dhigaynaa RGB kan haddaynu nidhaahno 22417891 haddaan save idhaahdo waxaan arkanaa inay yeesheen markaasi kalaro kala duwan waxaan samayn karaa haddii aan iyagoo dhan hal mar doorto oon idhaahdo start free button start button pro iyo sidoo kale start button silver fontkooga waxaan ka dhigi doonaa font sizekooda si ay u yaro weynaato waxyar 1.2 ram si ay hal mar markaasi font sizekaasi u weynaato waxaa kaloon odhan doonaa maadaama colorkan ay iskaga wada mid yihiin colorku white wada yahay aynu ka wada masaxnay dhammaantood kadibna aynu bartan dhigno colorka si ay markaasi inoogu save garaysmato dhowr line 2 line baa imka inoo save garaysmay 3 baynu masaxnay hal baa markay nagaga filnaaday okay saasuu markaasi inoogu dhamaystiran yihiin batanadaasna laakiin waxaan doonaynaa marka la dul tago mid walba hover baynu ku dari doonaa waxaan odhan doonaa background colorka isbedeli doona kaa koobaad marka la dul tago colorkiisana waxaynu ka dhigi doonaa RGB 2438787 haddaan save idhaahdo oon eegno marka la dul tago waxaan arkanaa inuu isbedelayo colorkiisu sidoo kale waxaynu odhan karnaa intanun haddii aan iminka copy gareeyo oon idhaahdo start button bro kan dambena wuxuu noqon doonaa markaasi silver okay proga waxaynu ka dhigi doonaa blue aynu iskan idhaahno maadaama bluegu eg yahay kan ugu dambeeyaynu markaasi ka dhigi doonaa 247188 iyo 79 kadaan save idhaahdo aynu eegno kan marka la dul tago isbedelaya colorkiisu kana blue buu noqonayaa kana sidoo kale wuu isbedelayaa kadibna waxaan odhan doonaa iyagoo dhan handara hal mar iisoo door yacni halkan waan ku dari karaa laakiin waxaan rabaa inaan hal mar ku daro si ay noogu fududaato marka waxaan odhan doonaa kan marka la hover gareeyo waxaynu ku daraynaa markaasi inaynu mousekeena ka dhigna gacan qofku markuu dul tago marka waxaan odhan doonaa kana hover dhe kana hover kana sidoo kale hover cursor-kaynu markaasi odhan doonaa pointer haddaynu imika dul tagno waxaan arkanaa inay isbedelayso mousku isku bedelaya markaasi gacan wax tilmaamaysa sidoo kale waxaynu ku dari doonaa transition oon odhan doono all 0.25 second is in and out taas waxay ka dhigantay markii hore markaynu dul tagno waxaan arkanay inuu colorka soo gelaya dhaqso isku bedelayay laakiin hadda si yaro macaan inuu colorkii usoo gelayo sidoo kale uga baxayo okay inta aynu kaga tagna markaasi kalaradeenan waxaan ujeedaa buttonskenan waxaan hagaajin doonaa hadda paragraphiskeena oo aan odhan doono paragraphiskan haysto dhan siteka waxaad ka dhigtaa grey si markaasi paragraphkani paragraphyadan meesha aynu ku haysanaa ay grey u wada noqdaan sidoo kale waxaan hagaajin doonaa small tagskeena iyagana waxaan odhan doonaa colorkooda waxaad ka dhigtaa color RGB 2727
27 then save idhaahdo waxaan arkanaa inay markaasi small tagskeeni marka hore grey ayay la noqotay paragraphka laakiin hadda markaynu hagaajinay inay markaasi noqdeen black waxaynu odhan doonaa dhammaan divskeena ama class namekeena aynu haysanay border waxaad ka dhigtaa qaar markaasi padding leh 10 pixels okay haddana imika save idhaahdo waxaan arkanaa in divkeeni watay border ay markaasi kor u yara baxeen waxaan ka dhigi karnaa maybe 13 si ay kor ugu sii baxaan waad arkaysaan markaasi hadda si ay u shaqeynayaan waxaa kaleyn u baahannahay haddaynu halkan tagno hadda waxaynu hagaajinaynaa markaasi kan freega ay ku qorantay waa class namekan aynu haysanay ee borderta laakiin waxaan u baahanahay iyaga laftirkooda yani kuwan in aan waxoogaa yaro border ku daro si ay markaasi u qurux badnaato marka waxaan soo qaadi doonaa kan ay ku qorantay border free ugu horeynta ka labaadna waxaynu haysanaa border pro iyo ka ugu dambeeyo ah border silver okay bartan aan iman doonaa waxaan odhan doonaa border free waxaan ku dari doonaa markaasi border ah 1 pixels solid oo light coral ah tan imika save idhaahdo waxaan arkanaa inuu ku darsamay border markaasi meeshani ay ku qornayd freega waxaan samayn karnaa haddaynu intan imika comments kan idhaahno ama iska masaxno si ay meesheenu inoogu yara kala fogaato waxaan ka saaray marka hore borderka dhammaan tagiskeen oo dhan laakiin projectgan uma baahna inaynu ka saarno markaasi marka saasaan odhan doonaa waxaan arkanaa hadda inay kala fogaadeen marka bartan aan iman doona waxaan odhan doonaa border pro isagana waxaynu ku dari doonaa border ah 1 pixel solid steel blue colorkiisana waxaan ka dhigi doonaa steel blue kan laftirkiisa colorkiisa waxaan ka dhigi doonaa light coral haddaynu eegno waxaan arkanaa inay si qurux badan noqdeen hadda aynu kasii soconno waxaan odhan doonaa ka ugu dambeeya ah border silver borderkiisa waxaad ka dhigtaa kan 1 pixels solid kan RGB baynu odhan doonaa kadibna waxaynu odhan doonaa ha noqdo midabka orangeka colorkiisana waxaynu ka dhigi doonaa isla colorka aynu bartaa ku haysanay markaasi orangeka okay hadda waynu dhammaystirnay waxa kaliyaatay noo dhiman intaynaan u gudbin markaasi responsivenimada waxaweyaan markaasi pricekan marka waxaan odhan doonaa waxaynu usoo bixinay class name baynu usoo bixinay la dhahdo price meeshan inoo dhex yaalay waxa kaliyaateen bedelaya waxaweyaan markaasi colorkiisa oo aynu ka dhigi doono grey imika waan xidhay laakiin keeni dhamayska tirnaa saasaynu imika ku dhamaynay waxaa kor usoo yaro baxsanayd keeni dhamayska tirnaa qeybtan markaasi popularta marka waxaynu usoo samaynay bartan haddii aan halkan tago plankeenan ayaynu ku darnay meeshan popular marka waxaan odhan doonaa kaas leh popularta ayaynu ku daraynaa box shadow marka waxaan odhan doonaa box shadow 0.25 pixels 50 pixels minus 12 pixels RGBA kadibna 0.25 yani RGB-gan waxay u taagantahay redki waxaynu nidhi 0 greenki waxaynu nidhi 0 bluegin waxaynu nidhi 0 eedaas waxay u taagantahay transparency yani intuu soo baxayo ama khafiif uu noqonayo ama uu muujisnaanayo marka waxaynu arkanaa in pro planken imika ay kor usoo yaro baxday oo ay noqotay mid kor usoo yaro baxsan saasuu inoogu dhammaystiran laakiin waxaynu arkanaa marka la yareeyo inaanu responsive ahayn marka taas aynu hagaajinaynaa hadda aynu tagna meesheenan aynu commentka ka masaxna halkan oo aynu nidhaano ha noqoto columns yani qaabkaas ha noqoto ugu horeynta marka screen size ku yaryahay kadib bartan aan iman doonaa waxaan odhan doonaa media queries media screen hadaad tiraadid kadibna waxaad raacin doontaa and waxaan odhan doonaa min width 870 pixels waxaan leenahay markaasi codeka aan halkan ku qori doono ha saameeyo wixii ka badan widthka intan leeg yani widthku hadduu intan ka yaraado ma saameyn doono tusaalahaan waxaan doonayaa inaan taa ku tusoon idhaahdo bodiga waxaad ka dhigtaa
backgroundkiisa waxaad ka dhigtaa red. Okay, waxaan arkanaa inuu bordigii imika noqday red. waxaan leeyahay imika eeg markaynu soo gaarna 870 pixels wakaas halkaa weeyaan, yani wixii ka badan oo dhan red ha ahaado, oo min widthka cabirka ugu yar ee uu saameynaya shaygani ha noqdo markaasi 870 pixels. yani wixii intaa ka yar, min widthka intaa ka yar, waxaynu leenahay ma saameynaya codekani. halkaa waxaan jecelahay inaad fahanteen. haddaan hal mar ku celiyo, ma saameynayo codeka bartan aynu ku qoraynaa wixii ka yar 870 pixels. wixii ka weyn unbuu saameynaya. marka waxaan odhanaa cabirkeenu markuu ka weynaado 870 pixels, containerkeena ayaynu odhanaynaa waxaad ka dhigtaa flex directionkiisa row, just like that. markuu ka yaraado 870 pixelsna wuxuu noqon doonaa markaasi column. yani responsivenimada dhan ee laguu sheegaa waa intaas, oo aad si fiican u fahantid oo hadhowna aad dabaqdid markaasi. okay, intaasaan ku gabagabeynayaa. waxaan rajaynayaa markaasi inaad ka faa'iidaysatay tutorialkan oo ay ku caawisay oo aad ku baratay markaasi HTML iyo CSS. intaasaan kusoo gabagabeynayaa. tan iyo intaan muuqaalka dambe ku kulmi doono, waxaan idkaga tegayaa nabaday.